أحمد عيدير وكميدا قولها دعاء أسبق معارضك وداني أيا ديق بيو يعطون فضودها قارسيي ديغان كقردير قبل كسرار ديق داسايا وحا كماد عديدتك كنول ديغان كاسي وحانا هذا لدوري كميدها دانو نهي magaalada Qoridheere waxaana soo gaadhay xusbiga wadani isagoo mar horena na soo maray magaaladana si laba boydood biya miyigana uu diray laba boydood biya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa ku mahadsan yahay marka magaaladanina dad fara badan oo jilcisanaya jooga halkan waxaanu warbixin aanu ka dhiibaynaa tuulada Qoridheere iyadoo ay noo yimaadeen xusbiga wadani roobku tayna waa laga hayaamay cidina dadkii iyo maatadii iyo baa laga tagay wixii shirsanay ardaydii iyo waayeelkii ayaa laga tagay wuxuu yimi oo dawladda ah oo yimi oo wuxuu keenay waxa jira xusbiga wadani aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaan nahay beesha Qoridheere iyadoo jiraalka iyo kaliilaha iyo waqtiga iyo abaaruhu ay aad ugu feelfin yihiin waxaan leenahay xisbiga wadani mooyaane wax noo yimi ma jiraan weyn islaamnimo hoos loogu eego waxa adduunyada ugu sii daran waa haraad iyo maxay haytay wax la yiraahdo raashin xumo geeska kale waxa isagu halkaasi ka hadlay Axmed Cigayare oo isagu deeqdani soo gaarsiiyay waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan joognaa tuulada Qoridheere waa meelihii ay ugu darayd abaartu ee aadka u saameysay dadkeedii kala badho barinka badan baa ayaa ka hayaamay intii isqaadi kari weydo kaliya jira waayeel iyo caruur baa lagaga tagay meelaha ay biyalaanta aadka uga jirto way riigeedii horena uu ka jabay ceelashuna biyo ma leh haddana xisbiga wadani wixii aan taakula ka geysan karayna waanu ka geysanay waxaan ugu baaqaynaa gudida abaaraha hay'adaha samafalka xukuumadda Soomaaliland dadka magaalada ku dhibaataysan iyo hareeraheeda buurahaas ku wada jiraan xoolihii way soo gaadhi waayeen ceelka aan biyaba kaga soo horeynin waxaan ugu baaqaynaa in la soo gurmado dadka halkan anagu wixii aan taagtayada ahayd iyo tamartayada ahayd waan soo gaarsiinay inaanu aragno indhaha ka soo qaadnaba anaga farxadno ah waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo noo soo diray yiri dadka indhaha ka soo qaada waxaan aad iyo aad aan doonaynaa in fariintayada ay la dhageysto aad loo maqlo